waxaa jiri jiray laba saaxiibo ah oo lagu kala magacaabi jiray Marwaan iyo Cawil. maalin maalmaha ka mid ah baa labadii wiil oo saaxiibada ahaa safar ku maray dhul dheer oo saxaro ah. ayaga oo wata safarkooda ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf. markaas bay in yar murmeen. Cawil ayaa wejigii ka dharbaaxay Marwaan dharbaaxadii saaxiibkiisa ayuu ka xanuunsaday. markaas ayuu iska yara aamusay. aayar ayuu dhulka u fariistay. markaas ayuu ku dul qoray carada dusheeda, maanta waxay dharbaaxay saaxiibkii aan adduunka ugu jeclaa. waxay sii wateen safarkoodii. durba waxay ku tageen war ama haro oo biyo ah. markaas ayay isku afgarteen in ay ka cabaan kuna qubaystaan. balse biyihii waxaa ku dhacay Marwaan oo kolkii hore la dharbaaxay. biyihiina wuu ku hafaday. hase yeeshee waxaa biyihii ka soo badbaadiyey Cawil. markuu nafisay ayuu dhagax ku dul qoray, maanta waxa ay badbaadiyey saaxiibkii aan dunida ugu jeclaa. Cawil ayaa ku dhahay saaxiibkiis Marwaan, saaxiib haddaay waxaad ku qortay carada korkeeda, laakiinse hadda waxaad ku qortay dhagaxa oogadiisa. markaas ayuu ugu jawaabay, saaxiib markii qofna xumeeyo waxaa wanaagsan in aan iska cafinno. sidaa daraaddeeda carada ayaan ku qoray si aan u soo xasuusan dib dambe. kolkii aan ku qoray dhagaxa waxaan ugu qoray si aan u ilaabin, sababtoo ah dhagaxa dushiisa wixii lagu qoro dabayshu ma qaadi karto. sidaa oo kale waxaa wanaagsan in aan la ilaabin wanaagga ay dadku inoo falaan.